السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada madbaxa Muna. Maanta waxaan idin tusayaa insha Allah pudding aad u macaan oo laba nooc aan ka sameeyay, moose iyo aan ka sameeyay strawberry sida arkaysid. Waynakas insha Allah daawasho wacan. Waxaan isticmaali doonaa chia seed sida arkaysid. ونبات كاس أنا في صومالي كجرنين لكن شيا سيد بالهذا هكذا نقص قردونا والنفقة وعافماد لكن لبس مو ناكسنه عشان 8 جرام وما القعد طاس إلا قبس مالتي مو ناكسنه نكوه رئيسه شن ميد أو فراولة أنا لبكر وكتري أيان وتوجهن لنا في صومالي بالهذا we gonna smash it طاس إن شاء الله. بركيت هذا سب مطبوخ من دونها. أبتاس هذا الكيس معها. كان بس مشكلة. وحنقول دريا إنك مالقعد شيا سيد كوا. بس. حنقول دريا مالقعد ملبقة ومعاه يرويلسه iyo waxaan ku darayaa koob caano ah intaas ayaan insha Allah si fiican u walaaqaynaa. haddaad doonaysid puddingka chia puddingka inuu yara adkaado waxaad ku badinaysaa chia seedka ayaad ku badinaysaa. haddii kale sideeda talaagada ayaan gelinaynaa. marka talaagada gelisid ay yara fariisato oo yara adkaanaysa. imika wada arkin biyo weeye laakiin talaagada markaan geliyo aan ku daayo saacad ay yara adkaanaysa. ana saas ku jeclahay laakiin haddaad kaasayna adkaato caanaha ayaad ka heli kartaa. chia seedkan in yar baad ku tafin kartaa. laakiin saas ayaan ku daynayaa anigu insha Allah. waxaan ku shubayaa leebkan bileedka doontidna ku shubi kartaa. kan baan ku shubayaa insha Allah. bismillah. waxyarna yara daadaatay laakiin wax dhibi kuma jirto. kan yarna sharaxaad baan uga dhigayaa. aad agtihiin cuntada indhahana waa laga cunaa afkana waa laga cunaa. saasay ku diyaar tahay chia puddingkeenu. waa aad bay nafaqo badan tahay waana yara culays. qoraa baad ka dhigan kartaa. talaagada imika markaan yara geliyo way yara fadhiisan doontaa insha Allah. kadibna waa diyaar. bismillah. imika waxaan sameeynaynaa chia puddingkii oo kale oo laakiin aan ka sameyn doono moose insha Allah. bismillah. kadibna sidii strawberry oo kale ayaan isagana bujuuqinaynaa. isagana smash that insha Allah. waakaas waan bujuuqiyay. sarjeetadii waan aad ugu bujuuqiyay. there you go. waxaan ku darayaa sidii tii hore oo kalena 1 tablespoon malqacad weyn oo ah chia seed. muusku macaan buu iska leeyahay marka sokorna waa ku dari kartaa doonaysid sokorta bunida ah. laakiin waxaan ku darayaa in yar oo malaba. laakiin intii hore tii kale aan ka yaraynayaa maadaama muuskuna isagu uu sonkor leeyahay. laakiin waa ka dayn kartaa haddaad doonaysidna macmacaan ba inaad doonayn waad ka dayn kartaa. iyo koobkii caanaha ahaa intaas ayaan imikana isku walaaqaynaa insha Allah. saad aragtiinna weli waa biyo anaa saa ku jecel talaagada markaan gelinana
iska yara adkaanaysaa insha allah. Chia seedka insha allah google-ka ka eega baara faa'iidadiisa sida loo isticmaalo. Ana maanta waxaan la qaybsaday pudding, laakiin waxyaabo badan baa lagu sameyn karaa insha allah. Waan soo dhigi doonaa waxyaabaha kale dhan lagu sameeyo. Waxaan ku shubaynaa raashiyo kale ku shubaynaa insha allah halkan. Bismillah, let's go. halkaas waxaan kaloo ku daraynaa muus yar. طبعا uma baahno inaan muus ku daro, laakiin sharaxaad yar baan naga dhigaya insha allah. raashiina waa diyaar imika. saas ayaan talaagadeedana ku gelinayaa. saacad kadib ayaan isku soo noqon doonaa insha allah. bismillah, talaagadii waan kasoo saaray, laakiin wax badan kumay jirin. imika insha allah waan dhadhaminaynaa. bismillah. very nice, masha allah. halkaas insha allah. barakallahu fiikum for watching, and insha allah see you next time.